wuxuu u keenay koob shaax ah, koob yar oo nadiif ah oo dhoobo ka samaysan. nooca martida lagu maamuuso koob ay ka muuqato xasilooni iyo ixtiraam, laakiin koobkan waxaa la qorsheeyay inuu geeri sababo. madaxweynaha dalka Burkina Faso Ibrahim Traoré wuxuu ku sugnaa kulan gaar ah oo ka dhacay saldhig ciidan oo ku yaal banaanka magaalada caasimadda ee Ouagadougou. ma ahayn wax weyn ee kaliya, wuxuu ahaa kulan gaar ah oo isugu yimaadeen saraakiil sare iyo la taliyaal si ay uga wada hadlaan qorshaha howlgal la filayo in laga fuliyo bariga dalka. jawigu wuxuu ahaa mid degan oo caadi ah, mana jirin wax cusub. waxay hoos fadhiyeen geed camba ah, waxaa la keenay shaah caraf badan oo kulul. waxaa qaybiyey askari xirnaa darees caadi ah. Ibrahim Traoré wuxuu koobka u qaatay sida caadada u ahayd, wuu dhoola cadeeyay, madaxa ayuu u ruxay si uu ugu mahad celiyo. laakiin markaas ayuu istaagay, wuxuuna go'aansaday inuusan cabin. indhihiisa waxay ku dhaceen askarigii shaaha keenay. waa weji ku cusub, waa wiil dhalinyaro ah oo haddana walaac uu ka muuqdo. wuxuu koobkii u hayay si tartiib ah, weliba wuxuu isugu geeyey labadiisii gacmood sida inuu gacanta ku hayo galaas cabitaan qabo uu ku jiro. dhinaca kale goobta waxaa fadhiya Colonel Yaya Kanote oo ahaa sarkaal khabiir ah oo lagu yaqaano maskax furnaan iyo inna dabacsan. wuxuu si dhaqso ah u cabay koobkiisii, xitaa aad ay u qurquriyay. wuxuu eegay madaxweynaha isagoo leh, fadlan mudane madaxweyne, cab shaaxa iyo kaa qaboobin, shaaxu waa fresh. laakiin Traoré isma dhaqaajin, kaliya waa uu dhoola cadeeyay. markaas ayuu si tartiib ah koobkii u dhigay miis yar oo u dhawaa. jawigii meesha ayaa isbedelay, inkastoo aysan dad badan dareemi karin. haddana Captain Zongo hor gudaha qasriga madaxtooyada, madaxweyne Traoré wuxuu helay fariin sirdoon oo sheegaysay in la sumayn doono. waxaa loo dhaafay warqad yar oo loo saaray miiska intii uu ku jiray kulan. warqadda noodka ah waxaa ku qornaa, ka digtoonow shaaxa, maanta kalsoonidaada ayay tijaabin doonaan. magac kama muuqan warqadda, talo kale ma jirin, kaliya waxay ahayd digniin soo gaartay xafiiskiisa. wuxuu doortay inuusan iska indhatirin. wuxuu raacay jadwalkii, wuxuu aaday saldhigga, wuxuu la fariistay rag ay sanado isyaqaaneen, wuxuuna sugayay qofka uu noqon doono khiyaanolaha. weli lama taaban koobkii shaaxa ahaa, qof walbana wuxuu ku baraarugay in shaahii qaboobay, madaxweynuhuna iska indhatirayo. cabbaar kadib Ibrahim Traoré wuxuu si toos ah u fiiriyay Colonel Kanote. waa daymo ka duwan tii hore, wuxuuna yidhi, waa wax la yaab leh runtii, imise wax ayaa ku dhuuman kara wax aad u yar sida koob. Kanote wuxuu muujiyey dhoola caddayn qasab ah, wuxuuna yidhi, waa quruxda shaaxa mudane madaxweyne, amaba khatartiisa, ayuu Traoré ugu jawaabay. markaas ayuu si tartiiba u istaagay. jawiga kulanka oo dhan ayaan isbedelay. madaxweyne Ibrahim Traoré si degan ayuu u istaagay, labadiisa gacmood ayuu gadaal isugu geeyey isagoo indhaha ku gubaya Colonel Kanote. intii kale ee shirka joogtay waa la wada aamusay. hawada ayaa cuslaatay, xitaa shambirihii geedka cambaha saarnaa ee ka sharqamayay ayaa codkoodii la waayay, sida in iyaguna ay sugayaan waxa xiga. Ibrahim Traoré ma uusan qaylin, ma uusan adeegsan awoodda xukunka, ee wuxuu si degan u weydiiyey hal su'aal oo qoto dheer, taasoo ahayd hal xiraale culus. Colonel, ma ku kalsoon tahay dadka noo shubay shaaha? Colonel Kanote indhaha ayuu mirig ka siiyey, wuxuuna yidhi, dabcan haa mudane madaxweyne. hagaag, ayuu Traoré yidhi. wuxuu ku jeestay mid ka mid ah kaaliyaashiisa, wuxuuna farta ku fiiqay koobkii aan la cabin. fadlan adigu ma cabi kartaa? kaaliyihii wuxuu u dhaqaaqay koobkii isagoo jahawareersan. Kanotena wuxuu taagay indhaha. maya sug ayuu yidhi, weliba si degdeg ah. kuma wanaagsana in koobabka la wadaago, waxaa ka dhalan karta nadaafad darro. madaxweyne Traoré gacanta ayuu taagay, wuxuuna yidhi, nadaafad Colonel mise sun? afkii ayaa joogda gabay. wixii meesha joogay oo dhan waa la aamusay, kaliya waxaad maqli kartay dabeesha caleemaha ku dhacaysa. Kanote wuxuu isku dayay inuu isdifaaco, wuxuuna ku celiyay, Mr. President mudane madaxweyne, waxaan ku cadeynayaa cid halkan joogta ma yaaba sugayba. Ibrahim Traoré wuxuu soo bixiyay walk-talk ciidanka ku xiriirayeen, wuxuuna ku yiri laba eray oo kaliya, keena isaga. daqiiqada gudahood laba askari ayaa soo galay, waxayna keeneen askarigii dhalinyarada ahaa ee shaaxa shubayay. gacmihiisii gadaal ayaa loo xiray. wuxuu ahaa nin ay ka muuqato baqdin, aad ayuu u gariirayay. mid ka mid ah ilaalada madaxweynaha wuxuu miiska saaray boorso yar
oo ay ku jirtay dhalo caag ah oo aad u yar. waxaa laga helay jeebka surwaalka askariga, waxaana ka muuqatay calaamad ku qoran far aad u yaryar oo ah xarfaha VXT42. waa sun dareere ah oo aayar wax dishaa. wixii dishaa qofka dhowr daqiiqo gudahood ma lahan midab, dhadhan iyo urtoona. hadda waxay ku jirtay koobkii loogu talagalay in lagu dilo libaaxa Burkina Faso. madaxweynuhu wuxuu u jeestay dhinacii saraakiishii ku wareegsanaa, wuxuuna yidhi waxaan horkacay askar dagaal dhabax galay, waxaan aasay walaalo ku dhintay dagaal, laakiin khiyaanada gudaheena ka timaada waa mid ka khatar badan cadow kasta. markaas ayuu indhihiisii ku jeediyey Konote, adigu waad casuuntay, adigaa shaaha diyaariyey, adigaa igu yidhi cab marka hore. madaxweyne Traore ayaa aad ugu soo dhawaaday khaa'inkii, wuxuuna yidhi ma waxaad mooday inaan halkan ku soo gaari lahaa haddii aan cabayo koob walba oo la ii dhiibo. Konote afkii baa juuqday gabay. Traore madaxweynaha oo indhaha si cara leh ugu eegaya tuugii dhabarka ka toogtay ayaa ku yidhi ragga adiga oo kale ah awood uma laha inay u adeegaan dalka iyo dadka. waxaad rabtaan inaad iibisaan dalkan iyo dadkiisa, kana iibisaan shisheeye. markaas ayuu bixiyey madaxweynuhu amar cad, wuxuuna yidhi qabta oo xira khaa'inkan, laakiin yaana cidina ogaan, mana doonayo riwaayad, waxaan rabnaa si qarsoodi ah. markii Colonel Konote la sii watay, saraakiishii kale waxaa ka soo haray yaab iyo amakaag. sunta waa fashilantay, laakiin fariinta waa caddaatay. libaaxa waa la imtixaanay, wuuna u adkaystay. dib marka loo laabtay qasrigii madaxtooyada, khiyaanolihii waxaa lagu xiray qol ku yaal dhulka hoostiisa, qabow ah haddana mugdi ah. nuuciisa oo kale darabyada ma hadlaan, laakiin wax walba waa ay maqlaan. Colonel Konote waxa uu diiday inuu wax sheego, wuxuu beeniyey wax walba. wuxuu ku andacooday inuusan wax shaqo ah ku lahayn askarigii dhallinyarada ahaa ee shaaha keenay. wuxuu sheegay inuusan ogeyn wax sun ah lagu been abuuranayo, laakiin madaxweyne Ibrahim Traore dam kama gelin muran iyo qayli. wuxuu rumaysanaa caddayn bilaa hadal ah, xanuun badan oo xaqiiqo ah. Captain Songo ayaa soo galay qolka su'aalaha isagoo wata buug yar oo madow. waxaa laga helay boorsada askarigii dhallinyarada ahaa. Songo wuxuu furay buuggii, wuxuuna tusay Konote, qoraalkan waa adiga soo maahan. waa soo hubinay. bugaga buugga waxaa ku jiray magacyo qarsoon, taariikho kulamo ay dhaceen iyo liisaska lacag bixin la sameeyey oo shaki leh. waxaa ku jirtay lacag badan oo la bixiyey maalin ka hor isku dagii sumaynta, laakiin hal magac ayaa marar badan ku soo noqnoqday liiska. magacaasi wuxuu ahaa La Shakaal ama The Jackal. Ibrahim Traore wuxuu kala socday wax kasta oo ka dhacay gudaha muraayad hal dhinac laga arko, wuxuuna u jeestay kaaliyihiisii. wuxuu weydiiyey magacan horey muu maqalnay. kaaliyihiisii ayaa si tartiib ah madaxa u ruxay, wuxuuna yidhi haa mudane madaxweyne, hadda ka hor ayaan mar magacaas maqalnay 3 bilood ka hor, waxaana lagu helay kool sirdoon ay ku wada hadlayeen oo ciidamada sirdoonkeena ay basaaseen. wejigii Traore ayaa isbedelay, wuxuuna yidhi marka tani waa sheeko ka qoto dheer isku dayga Konote. tani ma ahayn keligiis, waxaa ka dambeeyey xoogag shisheeye. galabnimadii dambe Ibrahim Traore wuxuu isugu yeeray kulan qarsoodi ah, keliya raggiisa ugu kalsooni badan yahay ayuu u yeertay, sida Songo iyo 2 sarkaal oo ka tirsan qaybta la dagaalanka basaasiinta iyo khabiir ku xeel dheer dhinaca kombiyuutarada. waa ninkii hore u furfuray feelashii sirta ahaa intii lagu jiray isku daygii afgambi ee hore. waxay isugu yimaadeen qolkii dagaalka ee ku yaalay dhulka